go'aanka iyo talada laga qaadanayo wixii dhacay waxa laga yeelayo Soomaali bay u taala idinkaana ka wakiila xanuunkii iyo dhibaatadii la soo gaarsiiyay ma doonan inaan ka argoosanaan ma doonan inaan xadgudubno ma doonan inaan dhibaato ka daba geynaan sababta aanu sidaa u yeelanaa ma aha inaanan diyaar u ahayn inaanu dhibaato geysano keliya sababta aanu saa u yeelanaa waxa weeye guushii deegaanka kani ay ku hanteen taladii deegaankooda inay noqoto guul Soomaaliyeed inay noqoto guul midnimo inay noqoto guul horumar haddii aanu argoosano oo aanu guluf kicinno oo aanu deegaanka iyaga dhaafno guushu guul Soomaaliyeed noqon mayso sababeentay haddaanu argoosano guushu guul midnimo noqon mayso markii aanu gaadhnay Guubays 25 Agost ee la soo dhaafay maamulka iyo isimada dhaqanku waxay hor joogsadeen ciidankii iyo dagaalyahanadii gawaadhida saaraa waa la isu celiyay waa loo khudbadeeyay waa maqleen go'aankii aanu gaadhnay bay naga aqbaleen dadka go'aanka naga aqbalaya waxay ahaayeen inamadii hooyooyinkood guryaha lagu dumiyay ee la barakiciyay ee go'aansaday inay deegaankan ay ku dagaalamaan dhiigooda u shubaan markii go'aankii loo sheegay ee la yiri halka dhaafi mayno qof isdhaqaajiyay ma lahayn bal suuradeeya dad inta la dhibaateynayay la soo dhibaateynayay oo xanuun fara badan dareemaya oo go'aansaday inay qaataan taladii isimadooda iyo maamulkooda halkii bay weli taagan yihiin dhaafina maayaan haddiise dhigooda ka soo horjeedaa maskaxdoodu ay caafimaad qab ku talin weydo indhaha ka eegan maayaan hadda hadalkayga guntada Soomaaliyeed annagoo Guumays joogna ciidankii oo jabay oo aanu ku daba jirro baanu joojinay gawaadhidii iyo qoryihii iyo tiknikadii iyo ciidankayagii nabad baanu ku baaqnay ilaa iyo haddeerto waxgaradka Hargeysa iyo Burco hadday dhaqan ahaan lahayd hadday culimo ahaan lahayd hadday siyaasiyiin ahaan lahayd nabadii aanu ku baaqnay wax ka jawaabay oo nala qaatay ma jiraan taa beddelkeeda Muuse iyo rajiimkiisu waa soo dhaaranaya afka uun ka dhaaran maayaan col bay soo humayaan maxaa nagala gudboon colka waxaa nagala gudboon colka in aanu fartay taagan shan ka taagna haddii la yiraahdo nabadda aanu doonaynaa nabad aanu adyad ku qaadanayna maaha dambe caawa waxaan jeedinayaa baaqi ugu dambeeyay ee aanu u jeedinano dadka aanu deris ka nahay oo aanu leenahay nabadgelyaanu idiin haynaa duulaan idinkuma ahin waxaad noo geysateen oo kala geysan mayno dhulka yagaanu joognaaye kiinu haydinku filaado wixii dhacay waxaa laga yeelayaa inta aan soo sheegay argoosi male dabagal male colaad sii dheeraata male ma doonayno in colaad deegaanada oo dhan ku baahda ay dhacdo ma doonayno in dagaalkan isu bedelo dagaal qabaliya waxaanu doonaynaa in colaaddii halkaa ku joogsato aanu u soo jeesanno dib u dhiska dadkayaga iyo dalkayaga yaa isdilay ma waxaa isdilay harti iyo isaaq ma waxaa isdilay dhulbahante iyo fiqshiniya wada socda iyo Somaliland iyo isaaqo wada socda isdilay waxaasoo dhamay ismay dilin waxaa isdilay laba aragtiyood aragti midnimo doona iyo aragti gooni goosada labada aragtiyood baa isdilayay aragtida midnimo doonka waxaanu ku metelaynay dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee midnimada jecel aragtida midnimo doonka waxaanu ku metelaynay ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan min Raas Kaamboon ilaa Raas Casayr
aragtida midnimadoonka ah baan u taagnaan doonnaa waa difaaci doonnaa dalkan iyo halkani ma noqon doonaan halka Soomaali laga kala gooyo